بسم الله الرحمن الرحيم آد بad u mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah loona baahnaa runtii horta marka ugu horeyso waan salaamayaa baxda saxaafadda maanta ila soo xiriirtay waqti yani muxuu ahaa xasaasi ah loona baahnaa in yani muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed yani wixii soo martay yani muxuu ahaa ama dhibaato ah siyaasad xumo ay u geysatay in isbeddel loo sameeyo runtii xisbigan waxaan u aasaasnay rag fara badan baa yani muxuu ahaa yani kadib markii ay arkeen dhibaatada ummadda soomaaliyeed yani maalin walbo yani loo geysanayo maamul xumada cadaalad darrada qabyaaladda iyo yani waxyaabo fara badan oo aan loo baahnayn oo dhibaatooyin ah markii lagu sameeyan oo aragnay ayaa waxaan ku fikirnay xisbigan inaan aas-aasno dan guud iyo daryeel shacab una taagan waqtigan xaadirka inuu qabto xilka waddanka sababtoo ah siyaasadda dalka soomaaliya waa lagu fashilmay ceeb fara badan baa dhacday rag baa iska dhex fadhiyo madaxtooyadii tani iyo waqtigii cabdiqaasim salaad xasan ilaa hadda laga joogo oo aan xishoonaynin damiir xishood wax la yidhaahdo aysan lahayn ilaa maa waqtigan xaadirka ah xilal waddanka ka hayo bulsho matelo qabiil ahaan lagu keenay oon maarkin muxuu ahaa maalin walbo inuu yani muxuu ahaa wax faa'iide ah haba yaraatee wax yar oo kamid ah oo taariikhdiisa markii dib looga laabto oo dalka faa'iide ah kusoo kordhiyay aysan jirin hase ahaatee weli lasii rabo marka arrimahan oo kale markii yani bulshadu ay soo wajahdo mu'min waxaa la yidhi 3 jeer god lagama qaniino qofka mu'minka ah sababtoo ah haddii yani muxuu ahaa dowladdii cabdiqaasim waqtigeedii la fiiriyey raggan waagaas qabiilnimo iyo wixii lagu keenaba ay maarkan maamul dadka ay u qabteen dalka ay u qabteen wax lagaga garan waayey asaga hadduu xishoon waaye oo dhihi waayo war aniga waxba waa soo kordhin waaye talow booskan qof aniga iga habboon hala keeno uu dhihi waayey yani waxa waaye haddana kadib ana sii fadhiyo waa wax damiir xumo ah waa wax dadnimo xumo ah waa wax yani muxuu ahaa aan loo dulqaadan karin ruuxu waxaa loo baahan yahay hadduu wax qaban waayo inuu yidhaahdo arrintan waan ku fashilmay haliga raalli ahaada xilkiina qofkaa doontan u dhigto waa su-aal muhiim ah midda kale waa runta waqtigan xaadirka haddaan kaaga soo qabto yani wixii lasoo dhaafay aan kasoo gudubno waxaa waqtigan xaadirka ah soomaaliya xukun ku hayo rag isfahmay si fiican isu fahmay dhanka tuuganimada isdabamarinta corruptionka yacni qabyaaladda qabiilaysiga danaystanimo rag ku heshiiyey oo tuugnimadana yani aada iyo aada isla fahmay ciyaartu isla fahmay ayaa waqtigan xaadirka dalka gacanta ku hayo sababtoo ah hadda kora waxaa dhacday wax dad waaweyn ama odayaal loogu maahmaaha ama dad waxgaar ama bulshada soomaaliya inaan ugu maahmaaha maysan abooneen laakiin waqtigeedii baan taaganahay nin baa wuxuu guursaday naag buu guursaday ninka wuxuu ahaa nin tuug ah oo tuugnimo keliya noloshiisa iyo masaariiftiisa oo dhanba inuu wax soo jaabsiibo ama inuu wax soo dhaco ama inuu wax soo xado unbay ku dhisneed wuxuu soo aruursado maalmihii ugu horeeyo yani waxbuu soo xadxaday gabadhii baa loo gurigeeyey markii 7dii laga baxay kistii waa dhammaatay maalinka dambe suuqii buu aaday dadkii maadaama maalin walba yani jeebsiib iska socdo jeebabkii wixii ku jira lala baxaayo dadkii waxay samaysteen waxa yidhahdo jeeb tuug la yidhahdo hoostaas jaakadaha hoostooda iyo saraawiisha gudaha iyo meelihii baa wixii la gashtay ninkii wax dhaqaalidan uu soo waayay maalmihii 7 lagu jirayna maalin walba hilib ariya la cunaay adduun dhayl adduun baa la cunaay naagta uu qabana oo markaas uu soo aroosay nafsadeedii baaba tuuga ah
waa naag qalanshubata ah oo tuuga ah asagaba ka sii daran waxay samaysay maadaama ninkan eber yimid way baxday dariskii bay dhex martay digsi kaamilood qof u saaran oo hilib ku jiro ayayba soo xaday oo keentay hilibkii soo qaaday way u keentay way siisay oo walaal hilibka hagaa keentay waay waa soo xaday bay tiri oo adigu xadid ma taqaanaa buu yiri haa ma taqaanaa haa anadi waa wada noolaan karnaa buu yiri dad wada noolaan karo ayaa nahay buu yiri marka rag isfahmay oo sidii wax loo xado bartay ayaa waqtigan xaadirka Soomaali gacanta ku hayo magar heshiis bay ku yihiin dhaca isdabamarinta dhaqaalaha markii muxuu ahaa dekedaas wixii ka soo galo airport wixii yimid international community waxay bixiyaan European Unionka Mareykanka yani ilaa iyo dawladaha caalamka carabta lacagihii wax walba ay soo bixiyaan waxa way waa la kala qiibsadaa dan Soomaali uma fikiro waxa taas daliil u ah horeyna aan ugu hadlay war ruux damiir leh oo Ilaahay ka baqay aakhir u socdo ma ka suurtabilad maanta intuu hal guri wada shisheey ku yaalo inuu 3 milyan iyo 600 oo kun oo dollar lacag ku dhow yani oo ka badan inuu ka bixiyo hal guri kaliya ya ma aakhira gurigaas u raaci doona qabriga miyuu la gali doona ma la dhax dhigi doona markuu dhinto meesha ku urmiya la dhihi doona maya waa la fogeyn baqtigiisa magar waa la iska fogeynaya qabrigii dhaxdiisii buu ku uri guriga ma raacay guriga intuu ka yimid waa xisaabtu waxay ka sii balaaban doontaa guriga banaankiisa carrada ciidda taala ka balaabanay ilaa ma musmaarka ugu dambeeyo oo la xisaabiyo meeshuu taagan yahay kama dhaqaaqay maalinka qiyaamo magarat meeshuu taagan yahay kama dhaqaaqayo ummadda Soomaaliyeed marka haddii marka yani dhibaatadan ay dhacday see loogu bixi karaa waa arrintu see loogu bixi karaa waa in la fikiraa waa in meel la fariistaa magarat 7 abaar oo isku xigto waa dhamaanaysa abaar waa laga bixi karaa laakiinse talaxumo weligeed Allah lagama baxo magarat Soomaali talaxumo hayso waa inay doortaan hoggaan dhab ah oo cadaalad ah oo dadkaas iyo dalkaas u damqanayo ya ummadda Soomaaliyeed way dooran kartaa waa inay doorato Soomaali waa dad damiir leh waa dad iska celin karo wax allaale wixii ayaga ku soo duulo dalka Talyaani baa gumaystay Ingiriis baa gumaystay Itoobiya baa soo weerartay meel walba laga soo weeraray ma garat war damiir laawayaashan oo yani dhax fadhiyo madaxtooyin noo fadhiyo suududka ay wataan qiimahooda yani muxuu ahaa ilaa iyo $5,000 suud alla wato ya oo aan xoolaha dawlad markii oo shacabka Soomaaliyeed dhiigoodii la cunayo ma fiirsanayna ma garat oo dhinac kamid ah badaheeni iyo yani muxuu ahaa iyo wixii dalkii markii loo wax soo saarkiisa iyo dahab had waqtigan xaadirka hata nimankii argagixisada waxay heleen baa dahab bay heleen meel buga qabliirada ayaa dahab ka heleen al-shabaab dahab bay heleen dalkii khayraadkiisa waa la daldalan kalluunkiisa waa la guran dhirtii waa la xaalufin xoolihii nool way baaba'ayaan ya ruuxu markuu mas-uul noqdo ama hoggaan loo dhiibo gacanta waxaa loo gelshay naar iyo jino iyo naar baa gacanta loo gelshay haddii ummaddu u cadaalad firo oo ilaahay kaga cabsado xoolaha dadweynaha maalinka qiyaamo maalinka ilaahay hooskiisa ayuu harsan carshiga hooskiisa ayuu harsanaya qofkaas maxaa yeelay waa hogaamiye waa imaam caadil oo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisku ku sheegay ma garat aaw imaam caadil xasan sheekh maxamed caadilnimo lagama sugayo wixii lamid ah laga soo bilaabo waqtigii Cabdiqaasim ilaa hadda lagu joogo ragga dhax fadhiyo madaxtooyada war miyaa iska qaban weynay Soomaali ha tashito oo ha isu timaado oo bilaa calaykum raggana iska celino war doorashada soo socota dalkan sidaan ha ka baxee dalka isbedel lagu sameeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala tawfiiqna waafajiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh